maxaa sababay in Soomaaliya ay ka dhex muuqan weydo nidaamka maaliyadeed ee adduunka amba wax loo yaqaan global financial system? marunba in bangiyada caalamku ay ka fogaadaan dalka oo dhan? jawaabtu ma aha mid fudud, waxay ku saabsan tahay kalsooni, nidaam dowladeed oo jira iyo khatarta ku gadaaman. Soomaaliya si buuxda uguma xirna nidaamka maaliyadeed ee adduunka ama global banking system. bangiyo badan oo caalami ah ma jiraan xiriir toos ah oo ay la leeyihiin bangiyada gudaha dalka. taas waxa ay ka dhigan tahay in lacag dirista iyo lacag helistu ay noqoto mid aad u adag oo qaali ah. ganacsato badan waxay ku tiirsan yihiin qaabab kale oo ay lacagaha ugu diraan dunida kale, sida remittance serviceska ama xawaalada. nidaamka xawaaladu wuu shaqeeyaa, lacaga badanna way ku soo xaroodaan dalka gudihiisa, qaarna way uga baxaan, laakiin ma buuxiyo baahida nidaam bangi u qaban lahaa ama maaliyadeed oo casri ah isla markaana jaban. sababta ugu weyn waxay ka taagan tahay waxa loo yaqaan AML ama anti money laundering. bangiyada caalamku waxay ka fogeeyaan in nidaamka ama dowladda daciifka ahi ay u sahlaan lacag dhaqida sharci darrada ah. maadaama aanu nidaamku xooganayn, waxay aad u aaminsan yihiin in nidaamkaasi u sahli karo lacag dhaqis. arrinta labaad waa wax loo yaqaan de-risking. tani waxay ka dhigan tahay in bangiyada waaweyn ay go'aansadaan inay gebi ahaanba ka fogaadaan wadamada ay warkayaan in khatartoodu ay aad u sarayso. sabab si ay uga fogaadaan ganaaxyo iyo sharciyo adag oo ay ku soo rogaan dowladahooga ay ka tirsan yihiin. sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin la xidhiidha dhanka financial infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha. nidaamka bangiyada guduhu iyo sida loo maamulo ee shuruucdooda ay u shaqeeyaan, kormeerka maaliyadeed ee ay samayso dowladda amba ciddii kale ee madax bannaan, weli ma gaarin ama ma gaadhsiisna heer aad u sarreeya oo la isku halayn karo. ugu dambayn, waxaa jira wax loo yaqaan country risk perception, oo ah in caalamku ama bangiyada adduunku ay u arkaan ama ay ka aaminsan yihiin siyaasad ahaan dalkaas inuu yahay dal amni ahaan aan sugnayn, isla markaana aan xasilooni ka jirin. natiijada ka dhalatay la'aanta ku xidhnaanshiyaha nidaamyada maaliyadeed ee dunidu waa mid aad iyo aad u duwan muuqata. ganacsatada Soomaaliyeed waxa ay la kulmaan caqabado marka ay rabaan inay lacag diraan ama ay helaan. maalgashiga dibadda ayaa sidoo kale wuxuu noqdaa mid aad u yar. nidaamka maaliyadeed ma aha mid si buuxda loogu kalsoon yahay. dhaqaaluhu ma kobci karo, laakiin si gaabis ah ayuu socdaa. xawaaladuhu adeegyada bangigu qabto oo dhan ma samayn karaan. si kastaba ha ahaatee, Soomaalidu gebi ahaanba kama go'na nidaamka maaliyadeed ee adduunka, balse waxaa jira shirkado iyo bangiyo gudaha ka shaqeeya isla markaana dibadda xiriir xooggan ku leh. waxay fududeeyaan lacagaha dibadda oo ah laf-dhabarta dhaqaalaha dalka. dhibaatooyinka ka dhashay ama saamaynta ay ka tageen ku xidhnaansho la'aanta bangiyada adduunku, waxyaabahaas waxaa ka mid ah inay qaali noqotay lacagaha exchange-ka ama marka online transaction la sameynayo inay runtii aad qaali noqoto isku beddelka lacagaha. haddaad doolar ku beddelayso euro ama euro to pound ama to yen, waxa weeyaan all of this waxay u baahnaanayaan change fee amba exchange fee aad runtii u sarreeya oo qeyr caadi ah oo qofkii khasaaro badan ka soo gaadhay. guntii iyo gabagabadii, marka dhibaatadu ma aha in Soomaaliya ay gebi ahaanba go'doon ay ku jirto, balse waa inay leedahay limited access to global financial system. yani aad ugu furnayn amba wax yar oo kooban ay ka isticmaasho nidaamka maaliyadeed ee adduunka. su-aasha dhabta ah waa sidee ayay Soomaaliya u dhisi kartaa kalsooni? sidee ayay u hagaajin kartaa nidaamka maaliyadeed? sababtoo ah mustaqbalka dhaqaalaha dalka wuxuu ku xiran yahay jawaabta su-aashaas.